baad ku celcelinaysaa xamar tagi mayna baa tiri arrimaheedana waa la socotaa in khilaaf badan uu ka jiro ma waxaad u jeedaa waanu dhex gelaynaa xaaraan bay nagatay geli mayno waxaan aanuba gelayn deysma haystaan iyagu iyo adduunkii baa is haysta annagu adduunku siduu isu qabsado loo heshiisiye ma naqaande maxaad uga jeedaa ninba nin buu kiraysay adduunka haysta maxaad uga jeedaa ninba nin buu kiraysay maxamedow 20 sanadood u dambeeyay saxaafadad ku jirto labadeenu way isku dhaweyn intaba wad garanaysaa sikaarka badaniga daa halka Cabdilaahi Yuusuf Ilaahay oo naxariistay wuxuu yiri habaar qabaan ahay oo Soomaali habaar qaba u baahan tahay madaxweynaha laga dhigay waaba ku tirinaya gabigooda ay dhigayso YouTube kaaga ka baaro ka madaxweynuhu ku helay Sheekh Shariif baa bedelay sidii loo eriyanayo loo lahaa waa maxaakiim iyo diyaarada loo fadhiistay Djibouti la geeyo 250 soo kaxayso madaxweynaha mid waliba ku bedelayo wax wada noocaas abtuna waa sidii soddon cishu joogay farmaajo markii madaxweynaha laga dhigay waxani hadaanay dadka ka iman meesha digan waxba ka sugin mid walba mid baa wata xasan sheekh aniga hay maqlay imka beeniyo bariiskan caruurta Soomaaliland saacahan ka qaaday markaan Kenya ku qaybinayni faarax macallin baa la socdo raashin baan Kenya geeyay annaguna laha aan sawiraydi la galo si Soomaaliland guurtideedii iyo wasiiradeedii Cabdirasaaq Khaliif weydii speaker weeyaan wasiirka ganacsiga waa maalinta raggiina laha credit baan doonayaa inaan silkiisa waree Guardian markaan wadanay New York Times madaxweynaha noqon doona UN ka watulaha waaba runtii uu noqday adeer mid walba dad baa la yimaadee wax ummadda meeshan joogta ka yimaada ma inaguna waxaynu ku badbaadnay 30,000 bay Sweden inoo keento boorama qaataan ale nala dhaaf maxamed xaaji maxamuud u tago warayso oo ragiisidey buu habeenka ay 30 ku Sheekh Ibraahim keenay waxa naga qaada 30,000 maxay oo dollar waynu diidnay in ay lacagtaasi ina soo gasho inamadii waxay yiraahdeen lacagta la celin ma sheekhu wuxuu yiri qaada maxamed xaajino maxamuud iyo raggan sooraa ka ufo lacagtii waa la qaaday bariis baa la soo siiyay Sheekh Ali Jawhar maqsinkiisa lagu xiray haddii habeenka laga hoydo lacagta doorashadii boorma lagu qabanaysta 9 kabay 30,000 bay keentay safaaradeedu inamadaasana wadi doorashada lagu qabto never bali la soo gali mayso waxa la yaa diiday markaa de sheekh iyo guurtidii shirka hogaaminaysa waxa loo diiday 3 milyan inta laga dhigaaba habeenkii la oran la guurtidii baa lacag loo keeno qarsatay dadka joogana ma gaadhayso hadii danahaaga laga laalusho aad lacag ka qaadato aawal kale 30,000 inamanay gaareen hadii min boqolooyis dadka siiya waana ku kala caban lahayn qoladii shirka odayaashii guddi baa la saaray raashin baa la soo siiyay naga qaadano anaga 3 milyan baa laga dhigaayo dollar habeenka haddii qofku isagu isku tashan waayo oo uu neefkiisa iyo taladiisa iyo aqligiisa uu ku tashan waayo oo loo talinayo halka waxba ka suuq marka waxa leedahay Muqdisho Soomaaliya waa loo taliya adduunkii baa isku haysta Turkigii baa soo noolaaday harim cadbuulay balaayo leeyahay Mareykankii baa jooga nin waliba nin buu shaqeeyaa warloodadii sidaas ahay haddana gobolay warloodadii waa gobollo war dadka halka jooga dad baan sicignaa anagu talaan u dirina ilaa ay sideen yeelaan oo isku tashadaan oo reer nabi aadan halka naga fariistay imkama dawlad baa jirta farmaajo waa ninkii awrka dhaasay soo dhaami leeyay dhexda awrka kaga lumay madaxweyne maaha Sheekh Shariif shalay buu ahaa ka kale xasan shalay buu ahaa mid buu bedelay war adduunka waxa weeyaan inay iyagu isku tashadaan maanta gaali iskaashka teenayaan xalana fadhido ciidan ay leeyihiin oo sida keenna maanta ay mushahar siiyaan ma jiro waa loo biilaya meel institution walba dawladooda siisay dawladdaasiisa African Unionka 28,000 muxuu qabtaa ma yaga ciidan leh sano wallahi ciidan Soomaaliya wixii dilay la helo teeni waa tii la xabaalay inuu meesha lagu mooso ka soo saaray war dadkani waxa weeyaan dad kira prepaid maskaxdoodina waa lagu ciyaaraya inaguna kala duwanaanshaha waa labadii gaalayna kala xukumi jiray gaalkeenu halkan iminka gurigaaga ka dhisay Indian line ka loo oran jiray
wixii dhakhtarka xaggaa ka xigana waxa la oran jiray gaaladaa deganay inagu xaggaasaynu deganay 6 magaalo inaga degay 6daba galbeed buu ka degay dhaqan baan inaga burburay iyaga uu dhex galay talyaanigii waxa weeyaan wiilkii iyo gabadhii wixiiba waa la wada talinaya culture buu u dilay horta de marka ilaahay ku kharibayo gaal xun buu kugu soo beega afrikaanku aqli badan ma lahayn talyaanigu waa wadanka adduunka ugu corruption badan 50 sanadood dambe search garee 50 ra'iisul wasaare la bedelay wararta nimankii bay isku heliyeen qaar waalay oo lacag sidana way heleen nin waliba hooyadii xabad ku dhufanaya adna hooyada baad xajka geynaysa uu baaranaya waa leeta beesaabale meesha lacag baa laga urursadaa madaxnimo mar way xildhibaan aad baad ugu fogaatay dhaliishooda